الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدى الصوماليد ميلا جوجتان با واتينو كلا باديوني برشي هاي نبض با waxaynu kelmad ka oranaynaa waxa weeye xaaladda dalku uu galay iyo maxaa ku leedahay dulmiga xasan sheekh iyo kooxdiisa dam jadiid waxa weeye sidaad ogtiin walaalayaal gobolka mudug waxa weeye maxaa ku dhamar labaad ayaa dagaal lagu hoobtay uu ka socdaa galguduud waynu ogeyn oo hadda dhuusamareeb loo fadhiyaa shirkeeda qoryooley iyo koonfur galbeed waad ogtihiin waxaan oo dhan yaa ka dambeeya yaa maxaa ku leedahay maalgasha yaa waxa weeye maxaa ku leedahay agaasima waxa weeye ayaynu isweydiinaynaa markaa kelmadan yar baan ku soo koobaya insha allah bismillaahi kariim dagaalada mudug ka jira dulmiga galgaduud ka dhacay duqan baa maalgasho dadka isaga isku diray dabuubtana waa siduu dad taageera u helaa dalkeenna u baabashaa dembiga waa aabbihii dadow ma ogsoontihin ninkaasi waxa weeye waa ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuud sababtana waan idiin caddaynayaa markii ay maxaa ku leedahay snmtu ay waxa weye duqaynayeen gobolka sool magaalada laascaanood waxaa jiray abaabul dagaal oo la doonayay in bulqa puntland lagu qaado iyo gaalkacyo iyo koonfur galbeed intaba lagu qaado waxa weeye maxaa ku leedahay dagaalkaasi waa diyaargarowgii dadkii la abdheedgareeyey ee la dagaal geliyey ee loo qorsheeyey inay duulaan ku qaadaan puntland ayaa puntlandkii wuxuu ku soo afgo-ay in ay waxa weye maxaa ku leedahay reer galdogob ay duulaan ku qaadaan sidaas si lamida ayay kooxda dir ay waxa weye dagaal ugu qaadeen kooxda magaranaysaa dada ka soo jeeda caabudwa sidaas si lamida ayaa koonfur galbeed dagaalka loogu qaaday oo la doonayaa in maxaa ku leedahay wejiyo badan buu leeyahay dagaalkaasi kow in dadkan waxa weeye maxaa ku leedahay magaranaysaa siyaasadda isku haya qaarna la laciifiyo qaarna kor loo soo qaado waxaa ka mid ah in maxaa ku idhahday magaranaysaa dadka fishan kale lagula dagaalamo sida lafta gareen oo kale sida qoorqoor oo kale sida maxaa ku leedahay dani oo kale qof kasta oo ka soo horjeeda aragtida xasan sheekh in lagu kiciyo duulaamo waxa weeye abaabulan oo dagaal waxa weeye qabiilaysana ujeeddada ka dambaysa ee dhabta ana waxa weye dalka in loo celiyo waxa weeye 1991kii waayo waad maqasheen wasiir fiqi oo leh waxa weye 91kii baa loo noqonayaa sambaloolshe oo leh waxaanu nahay waxa weye maxaa ku lahday super powerkii waxa weye maxaa ku lahday Soomaaliya ee guuleystay baanu nahay xasan sheekh oo in badan ku celcelinayay isaga laftiisu xilligu mucaaradka ahaa waxa loo noqonayaa maxaa ku lahday 91kii baa loo noqonayaa waxa weeye maxaa ku dhaha mareexaan oo bax waxa weeye waxyaabihii aynu ogeyn fishankii baa socda ismaaciil cumar geele ayaa kaaba ka arrintaa waynu ogeyn irir iyo maxaa ku dhahday irir samaale iyo waxa weeye maxaa ku dhahday magaranaysaa waxyaabo badan oo lagu bahalkeynayey marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inay fahmaan in dhagarta ummadda soomaaliyeed waxa abaabulaya uu yahay xasan sheekh weliba maanta inagoo ishayna cadow shisheeye oo Itoobiya aynu haysayno oo dalkeeni duulaan lagu yahay ayaa wuxuu rabaa dadkii Soomaaliyeed afkana wuxuu inooga sheegayaa inuu Itoobiya la dagaal ka soo horjeedo oo meelaha u maraya dadkii Soomaaliyeedna dabku isugu dhiibay oo waxa weeye maxaa ku dhahday wuxuu rabaa inuu isku dhamaado oo waxa weeye si uu aqligiisa xun ee daciifka ahi wuxuu isleeyahay dadku markay baaba'aan fursad baad helaysaa fursadaasna waxaad ku helaysaa qabiilku taageera oo kuwa arka inaad tahay leadership taa ayuu wax ku dayayaa hubkii dowladda loo isticmaalayaa ciidamadii baa ku jira meelaha qaarkood waxa weeye maxaa ku dhaha meelaha qaarkood dhaqaalaha lagu bixinayaa warka marka waxaan leeyahay kusoo gabagabaynayaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa inay fadhiga ka kacaan waa inay dalkooda u kacaan meel aynu ka dabaaldegno meel aynu durbaana ka tumanno meel aynu xorriyad magaranaysa maxaa ku dhahda aynu waa hore aynu cunnay aynu magaranaysa maxaa ku dhahda sheekadeeda wadno ma aynu joogno Soomaaliya kaca kor u qaada calanka Soomaaliya kaca kufka wuu caraabay Soomaaliya kaca karti iyo fnaan bayna kaabi doonta Soomaaliya kaca. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.